ujeedada xaragaygu waxa laga lahaa ujeedooyin waaweyn bay xukuumadda ku lahayd waxa la doonayay in awda laga rido colaad la mid ah tiilaas caanood baa la doonayay waxa la doonayay in lagu helo cimri dheer iyo in laga dhigto jid doorashada lagu diido waxa la doonayay in la geliyo deegaankayga xaalad amni darro oo meesha ka saarta dooda siyaasadeed ee aan qabno waayo ma jirin dambi aan galay ma jirin dambi aan qaran ka galay ma jirin dambi aan qof ka galay oo aan xari ku mutaysan karayn waxa la doonayaa waa kuma maxamed abib maxamed abib raba muxuu doonayaa bal isweydiinaya waxaan u sheegayaa ma yihiin nin aragtida uu qabo xarig iyo caga juglayn uga tanaasuli kara waan ugu celinayaa in badanna waan u qeexa ma yihi nin dagaal loo haliilayo iyo dhib waddanka laga rido lagu xalaalaysan karo aniga liigama heli kara taana maxamed abi waxaan aaminsanahay aragtidii mahatma gaandi baan anuu aaminsanahay in badanna warbaahintood wayga maqasheen anuu waxa aan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajinaan doonayo aragtidaan aaminsanahay diyaar baan u ahay xarig iska daayay inaan u dhintaan jecla laakiin inaan qof dilo ma doonayo aragtidaan aaminsanahay waayo hadduu qofku doonayo inuu qof dilo waa dilaadee laakiin nooleeyo ma sidaa darteed aanu dadku inay nolol helaan baan doonayaa taasaanu taaganahay in aniga lii dilay waan ogolahay waxaana leehay way xidheen ayar bay xidheen mar horena waan sheegeen haddaad bareeri dilaysaan iyo haddaa afka soo duubanaysaanba diyaar baana haddiise ay sii socoto kutumashada sharciga iyo tacadigu waa waajib in cid kasta oo lagu xadgudbayaa ay istifaacdo diinta islaamkaana saawku qofku istifaacaya walaalayaal dan yarta ayaanu qalbi jilicsanahay ee inta kibirsan uma qalbi jilicsani uma naxo caadifadaydu inta liidata ayay la jirtaa siyaasaddaydase caqliga ayaa xukuma garaadka ayaa xukuma calooshuna ma hogaamisaana siyaasadayda waxaan u taaganahay cadaalad iyo sinaan waxaan doonayaa dal iyo dad isleh oo ujeeddo ku midaysan baan doonayaa oo aan loo qayqaybin qabiil iyo xaafad waxaan doonayaa dal aan madaxdiisu ka ceeshin masaakiintiisuna aanay ku dhex gaajoonin baan doonayaa dadkooda ladan una sharcigu qaban ka miskiinkaana xabsiyada laga buuxiyo dal sharciyadiisa iyo qawaaniintiisa aan keliya lagu fulin dadka masaakiintaan doonayaa dal isla xisaabta ku xalaal iyo sharci ka yahay baan doonayaa intaasba waxaa iga maraga sida aan dalkiiyo dadka ugu shaqeeyey ee aan danaha shacabka uga doodayay intii aan xilka hayay gabiga afguriyaa kusoo gabagabeynaya intaa waxaa leeyahay yay noqon baahidu baqayo anaa riday baga iyo kufaafaan baacsa iyo tafiirgo ha ahaato baahidu kasbasaasay subagii biixi jabay kabkabidii hambukooday baantii bulsho liicda kicinteed intaana afguriyaa loo naxariistay ayaan ka soo ammaanaysanay